qofka bini aadanka markuu dhinto camalkiisa wuu go'aa, kitaabkiisana waa la daboolaa, laakiinse kitaabkiisa dib dambe ayaa loo furayaa. shamaa la furaa kitaabkiisa waxaa la furaa markii oo buunka khiyaamo la yeeriyo. buunka khiyaamo laba mar ayaa la yeerinaa. midka koowaad dadka dhan way dhimanayaan 40 sano. adduunka dad iyo duunyo wax uu ka noolaahayo ma jiro. 40 sano ka bacdi waxaa la yeerinaa buunka khiyaamo. markaas ilaahay uu dhahayo wanufiqa fi الsuuri faidaa hum min alajdaathi ilaa rabbihim yansiluun. buunka khiyaamo markii labaad markii la yeeriyo ahlulqubuur qabriyaalkooda way ka soo baxayaan. waxay u soo baxayaan inay aadaan maxsharka ilaahay agtiis. ka bacdi ilaahay wuxuu leeyahay qaaluu yaa weylanaa man bacaثanaa min marqadina haadaa maa wacda araxmaanu wasadaqa almursaluun. ahlulqubuurta waxay leeyihiin ilaahay wuu ballan qaaday inuu qabuurta naga soo saaraayo. markaas ilaahay wuxuu leeyahay in kaanat ilaa sayxatan waaxidatan faidaa hum jamiicun ladayna muxdaruun. markii buunka khiyaamo la yeeriyo dadka dhan la soo nooleeyo waxay la kulmayaan ilaahay agtiisa maxsharka ayay la kulmayaan. dadkani markaas waxay qubuuraha ka soo baxayaan ayagoo dharla. ilaahay ka bacdi wuxuu leeyahay liman ilmulku alyawm lilaahi alwaaxid alqahaar. oo maanta yaa u sugnaaday boqortinimada yaa u sugnaaday ilaahay asaga ayaa isku jawaaba. adduunka dad ma joogo lilaahi alwaaxid alqahaar. ilaahay wuxuu dhahay maa yalfidu min qawlin ilaa ladayhi raqiibun catiid. qofka eray kuma hadlo ilaa wuxuu ku hadlo yacni waxay qorayaan hadalkooda raqiib iyo catiid. buunka khiyaamo marka lamaad markii la yeeriyo waxay soo baxayaan dadkii dhan ayagoo naxsan. maxsharka ayay imaanayaan. ilaahay markaas wuxuu leeyahay falyawma laa tudlamu nafsun shay-an walaa tujzawna ilaa maa kuntum tacmaluun. maanta naf la dulmihaayo ma jiro, wax abaalgud laidin siinaayo ma jiro ilaa waxaad samaysateen. nin walba wixii samaystay ayaa ilaahay abaal marinaa. qof walba kitaabkiisa waa loo akrinaa. qofkii qof oo axsaan u sameeyahaynin kitaabkiisa waa loo akrinaa. qofkii oo khamro cabaayo oo lacagta gubaayo kitaabkiisa ayaa loo akrinaa. qofkaasi markaasi waxaa la gelinayaa naarta. qofkii zinaystay waa loo akrinaa kitaabkiisa inuu zinaystay waa la soo xasuusinaa. fanacuudu billaah. qoftii oo ninkeeda khiyaanay oo ninkeeda khiyaantay xaaska ninkeeda khiyaantay iyadana kitaabkeeda waa loo akrinaa. jahannama ayaa la gelinayaa. qof walba wuxuu shaqaystay ayuu leeyahay. maxsharka oo ilaahay agtiisa ayaa la imaanaya maalinta aakhiro. walaalayaal qofka laaluushka dhiibo iyo qofka laaluushka qaato dembigooda waa iska mid. adduunkan lagama waaraayo. adduunkan waa laga tegaa. aakhiro dhammaanteena ayaan aadaynaa. buunka khiyaamo markaas ayaa la yeerinaa oo dadkii dhan ay soo baxayaan. ilaahay wuxuu xukmaa qof walba wuxuu oo la shariig yeelay. qof walba shirkiga qofkii la shirki yeelay ilaahay jahannama ayaa lagu ridaa. ilaahay wuxuu dhahaa liamla'anna jahannama min aljinnati waannaasi ajmaciin. ilaahay naarta wuxuu ku buuxinaa oo gelinaa jinniga iyo insiga iyo dadka dhammaan wuxuu gelinaa naarta. qofkii naarta oo mutaystay ilaahay wuxuu leeyahay faduuquu bimaa nasiitum liqaa'a yawmikum haadaa innaa nasiinaakum waduuquu cadaaba alkhuldi bimaa kuntum tacmaluun. oo dhadhamiya cadaabta waxaad hilmaanteen ilaahay la kulankiisa oo agtiisa aad aadaysaan. maanta idinka waa idin hilmaamay ee ku waara naarta. naarta ayaad ku waaraysiin ayuu leeyahay ilaahay subxaana caza wajalla. haddana waxaa la furayaa buuggii oo ahluljannada ahaayeen. ahluljannada buuggooda sida uu qurux badan yahay bal fiiriya. ahluljanna buuggooda waa nadiif waa cad. ilaahay subxaana caza wajalla qof walba wuxuu mutaystay ayaa siinayaa. ahluljannada waa kuwaan. ilaahay naga dhigo ahluljanna. qofkii oo qof caawina oo gacan siiya maalinta aakhiro ilaahay wuxuu u ballan qaaday inuu qofkaas janno gelinaayo. qof walba waxa uu sameeyo oo khayr ah maalinta aakhiro waa arkayaa. qof walba uu sameeyo shar maalinta aakhiro waa arkayaa. ilaahay subxaana caza wajalla qof dhaafaaya male. hooyo birulwaalidayni ha loo naqdo.
nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu dhahay jannada waxaa ku jira hooyadaada labadeeda cad ama labadeeda lug hoostiisa jannada xagga karaadsada naqda baariyaal waalidka u naqda maalinta aakhira sidii janna aad ku geli laheedeen weli xisaabta waa socdaa caawin qofka curyaanka ah oo wax aan cuni karin maalinta aakhira ilaahay adigani waxaa kaaga dhigaa ahluljanna ilaahay malaa'igtiisa ayay ku qaadayaan jannadii ayay ku geenayaan aan ku dadaalno walaalayaal jannada ilaahay subxaana caza wajalla wuxuu dhahay fii jannatin caaliyah ilaahay dadka wuxuu u ballan qaaday janno aad iyo aad u sarayso laa tasmacu fiiha laaqiyah jannada dhexdiisa laguma maqlo wax xun jannada dhexdiisa ilaa wax fiican maahine wax xun jannada dhexdiisa ma lagu maqlaayo fiiha caynun jaariyah jannada dhexdiisa waxaa ku yaal webiyaal aad u qurux badan fiiha sururun marfuuca jannada dhexdiisa waxaa yaala nicmo oo weligaaga adduunka aad ku arkin iyo waabwaabun mawduuca jannada dhexdiisa waxaa yaala koobab midba midka kale ka daran wanamaariqu masfuufa wazaraabiyu mabduuta ahluljanna jannada dhexdiisa waxaa looga diyaariyey meel aad iyo aad u fiican ahluljanna jannada dhexdiisa waxaa loogu diyaariyey firaashooyin oo qaali ah ilaahay wuxuu lahay bal tu'tiruuna alxayaata addunyaa waalaakhiratu khayrun wa abqaa oo adduunka miyaad dooranaysaan adduunka waa dhammaanaa laakiin aakhiro ayaa baaqinimo badan ilaahay subxaana caza wajalla waxaa noo ballan qaaday jannooyin oo aad iyo aad u fara badan ilaahay waxaa noo ballan qaaday janno la yidhaahdo baabulsalaad janno la yidhaahdo baabusadaqa janno la yidhaahdo baabuljihaad janno la yidhaahdo baaburayaan janno la yidhaahdo baabuliimaan janno la yidhaahdo baabu tawba waxaa kale noo ballan qaaday ilaahay jannooyin badan janno oo la yidhaahdo daaruljalaal janno oo la yidhaahdo daarusalaam janno oo la yidhaahdo jannat ulma'wa jannat alkhuld jannat alnaciim jannat alfirdaws jannat alcadn daaru lkharaar ilaahay wuxuu leeyahay udkhulu ljannata wa antum waaswaajukum tuxbaruun galla jannada adinka iyo xaasaskiina ee ku raaxaysta jannada waxaa laga helaa gaarihiisa dahab yaalo koobab oo dahab ah iyo wixii naftaada ay niyeysato iyo wixii indhahaaga soo jiidanayso jannada wax walba ayaa laga helaa oo ilaahay dhahay yutaafu calayhim bisaxaafin min dahabin waabwaabin wafiiha maa tashtahiihi alanfusu wataladu alacyunu wa antum fiiha khaaliduun ilaahay waxaa inoo ballan qaaday janno ilaahay subxaana caza wajalla waxaa noo ballan qaaday janno ahluljanno wax way cunaan wax way cabaan waxni ma tufaan ma saxaroodaan ahluljanna ma kaadiyaan ahluljanno dhididkooda ma urayso ahluljanna dhididkooda waxay ka caraf badan tahay miskiga ilaahay subxaana caza wajalla iyo waxaa noo ballan qaaday jannooyin aad iyo aad u badan oo halkan aan ka soo koobi karaynin filimkan waxaa lagu turjumay ama waxaa lagu habeeyey stuudiyo saafi oo ku yaala dalka talyaaniga gaar ahaan magaalada baababa iyo walaalkiina aslax aba safi